السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada akhyaarta dhammaantiin. Halkan waxaan ka gudagalaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankana nagu siiyey waxaa ku jira xigmado fara badan iyo mawaacid fara badan. Marka waxaan rabnaa maadaama Ramadaanka soo dhow yahay dadku inay iskaga raaxaystaan ama annaguna maalin iska soo gudbino annaguna aan waxa weeyaan ku raaxaysano dhammaanteen. Marka mucjisooyinka qur-aanka lafdigiisa aba mucjisa ah lafdigiisa sida macnaha loo soo dejiyey oo Ilaahay ku keenay subxaanahu wa tacaala yaa mucjisa. Marka alfaada waa iyadii la yiri bal la imaado wax la mid ah oo xujo looga dhigay. Marka waxa weeye sababta loo yiri waa dareemaysaa xikmadda iyo tartiibka uu ku tusayo iyo xiriir ka dhexeeya aayadaha. Marka waxaan rabnaa maanta bal meel yar oo fudud inaan kasoo qabanno Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu suuratu rabbinaas ku leeyahay qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ereyga naas wuxuu la xiriiriyey saddex erey oo kala duwan, saddex macno oo kala duwan kala tusaaya. laakiin ereyga aan naas saddex jeer asaga la soo ceshay oo saddex erey oo kala duwanna waa lala xiriirshay. maxay tahay marka ereygan saddexda erey oo lala xiriirshay macnayaalka ay kala tusaayaan? Sidaa ognahay marjaca loo laabanayo waa luqadda carabiga iyo mucjamyada iyo sida loo isticmaali jiray erey kasta macnihiisa iyo waxyaaluhu faa'iideynaya. marka ereyga rabbi iyo ereyga malik iyo ereyga allah ama ilaah asagoo saddex macno oo kala duwan bay kala tusayaan. ereyga rabbi waxaa loo isticmaalaa waa barbaariye, waxaanu ka macnaha qofka hadda qoyska haya oo barbaarinaya asaga waxaa loo yaqaanaa rabbi. marka rabbi asaga waxaa loo yaqaanaa macnaha qof hal qof ama wax la mida uu noqon karaa. melikna waa boqor, marka asaga dad yar marka rabbi dadka uu barbaariyo ama macallin dugsi ha noqdo ama macallin ama qof xaafadiisa iyo carruurtiisa barbaarinaya ha noqdo, asaga waa dad yar buu haystaa. laakiin melig baa asagana ku xiga haddana mar labaad lasoo raacish. marka dadka midka barbaarinaya wuxuu noqon karaa macnaha macallinkii dugsiyaashii iyo waxyaalaha la midka oo kale tusaale halkaa haddaan kasoo qabanno. laakiin ereyga melig asagana wuxuu ku tusaya waxa weeye waa boqor. boqorkuna rabbiga wuxuu barbaarinayay ama hayay waa ka gudan weyn oo boqorka waxaa laga yaabaa magaalada oo magaalo weyn oo kale ama magaalo cawdaq oo kale magaalada muqdisho oo kale ama soomaaliya oo kale boqorku inuu ka taliyo. marka dadka uu rabbigu hayay waa ka tira badan yihin markii luqad ahaan loo fiirsho. ilaahuna asaguna marka ictiqaadka iyadoo aan loo fiirin dadka aaminsan ilaaha iyo ka boqorka waxaa inta badan ka ilaaha ayaa badan. marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexda lafdi uu soo qaatay wuxuu ku tusayaa in ka ugu hooseeya iyo ilaa ka u sarreeya dhammaantood Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu uu yahay allaha maamulaya, allaha ka warqaba, allaha barbaarinaya, allaha boqorkooda uu ka warqaba ayuu ku tusaya.